duqaynta hadda dhacday waxa weeye kuma aysan kayn habeenkii xalay ahaa ilaa habeen hore iyo habeenadan duqayntu waa socotay waxa duqaynta geysanayaan waa ciidamada Kenya dhul balaaran bayna duqayntaas ku dhacday habeen hore dhulka Awsqurun Kakuma la fagari ilaa ay faafxadun ee wixii buusaar ka midigay ay ku dhacday waa dhul balaaran oo waxa weeye daaqsadii iyo tuulooyinkii iyo wari biyaha iyo dirtoobta intuba ay ku nooshahay weeye waa garta halkaas iyada waxa ka maqan wixii warisgaarsiinaha ee lagu xariiri lahaa ka maqan oo horay ay u goysay warisgaarsiinihii warka looga ogaan lahaa ama laga xariiri lahaa umada joogta hay waxaan taftiray inuu saasa dawladda soo gudbin karay idaacadaha meeshaas waxyeelo khasaare naf iyo maal bale way geysteen waa garta xalayna waxay u wareegtay oo ay duqaynta u geysatay waa Samaroone iyo Isuguur iyo dhulka hadda wixii adigu iyadoo iyo dhulkaas hadda waxa weeye aniga bariga iga marahayo waxay xaalan duqaynaysay waa xagee bariga markay ka marayaan xagee joogtaa anigu waxaan joogaa ku suganahay waa degmada Eelwaaq weeye waxaan ku suganahay hadda aan ku sheegay degmada ay hoos yimaadaan weeye hay dhulka Eeldheer la yiraahdo degmada ay hoos yimaadaan ayaan anigu hadda joogaa xalana waxa weeye dhulkaas ay duqaynu geysatay gantaalo aad u fara badan bay ku riday waa dhul asaguna sidoo kale waxa weeye reer guuraagi degan yahay tuulooyinkii degan yihiin warihii laga cadbaayay joogta ku nooshahay waxa weeye si walba ah oo umadu ay ku nooshahay ma khasaaro la'aanayso mana waxyeelo la'aanayso duqaynta ku dhacaysa ama gantaalaha tirada badan lagu tuurahayaay marka laga reebo taliya ma khasaaro yaraan doonto ama khasaaro la'aan dhici maydo malahaas marka laga reebo ma jirtaa number dhimasho ama dhaawac oo aad og tahay oo soo gaaray oo dad wax noqday maya waan sugaynaa waxa weeye waa nolol ku maqan yahay warisgaarsiinta dhulka ayaa xun waa nolol ku maqan yahay waa dhul ay in badan horay u duqayso warisgaarsiintiisa ay burburisay wixii waxyeelo ah ee halkaas ka dhacay naf iyo maal marka ayna soo gaaraan wax waa jiraan oo si dhaba u soo xaqiijin ayaan rabnaa inaan la wadaagno oo warisgaarsiinta la xiriiro duqayntii saacadihii ka horeeyay xalay ama habeen hore dhacay ma haysaa wax khasaaraha oo ay geysteen khasaaro wuu jiraa waxaan diidahayaa warkii oo wixii hadda aan soo wada qabanin inaan ku yiraahdo intaas dhacday way jirtaa khasaare ma yara khasaaraha dhacay xoolo nool oo leeday baa jira dad wax gaareen baa jira duurjoog dhamaatay baa jirta wara waxaa jira loogu talagalay 3 bilood inay dadku cadaan oo dantaado ku dhaceen oo biyahaas dhulka u daloosho waxana banaanka u baxeen oo zeer ah nafleedi ku nooleed waxa ay mudanaysan waa garan kartaa wax badan ayaa waxyeeladu ay tahay waan soo ururinaynaa dadkii iyo deegaankiina waa nolol ku maqan yahay maxaa ugu wacan in laba habeen oo isxigta ay dhulkayma ah oo xoolo dhaqatay ay ku nool yihiin dad reer guuraa degan yihiin la duqeeyo oo diyaarada garneel ku garaacan maxaa u wacan waxa weeye ma ahan reer guuraa kaliya ma ahan waa tuulooyinkii waa deegaanadii magaalooyinka yaryar ee ay ku yaaleen waa warisgaarsiinta dhulka xalay waxay duqeynaysaa waxay anteenadii hadda ka hormar ay goysay mar kalena ay duqeynaysaa ciise guur ayaa kamid waxa ay duqeynaysaa oo ay rabtay inay goyso dhulka ay duqeynayso waxa weeye wax walba oo waxaad garan kartaa maanta la raba in la bixiyo ama la haleeyo waxaa la yidhahdaa oo loo maraa shabaab ma ahan marka ayadu waxay ugu burmarsiintaa waxaan la dagaalamaynaa shabaab dhulku shabaab maahan shacabku shabaab maahan xooluhu shabaab maahan warisgaarsiinta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed shabaab ma aha ma garad waa garta waxa weeyaan waxaan taas oranayaa Kenya waxay sabtaa in ugu marmarsiiso oo ay u burburinayso una leeynayso ummadda Soomaaliyeed iyo maalkeeda Cornel waxaad ka tahay saraakiisha militariga ee gada ku sugan duqeyntan aan ka hadlayno waa xal iyo habeen hore laakiin waxa ay gobolka gada ka tahay joogto aad baa loo duqeeyaa meelo badan habeen hore ma aha kaliya waxaan rabnaa waa isdaba joog weeye waa maasan tahay iyo dadable ay ahayd wixii toddobaadkan gudihiisa ay garaacaysay oo duqeynaysay tuulada yaaqle iyo dadable iyo intaas buu ognahay laakiin ma jirtaa cid aad kala hadasheen oo dawladda dhexe ah si arrinta wax looga qabto adeer waxa weeye dawladda Soomaaliya way og tahay ma mooga waxa dadkeeda iyo dalkeeda ku dhacayo Soomaalidu waxay hadallo badan ku soo gaadaysaa ma waxa la horsal hagar kuma maqna waxaan aaminsanahay oo aan halkayga ku joogaa in ay
miisaan ciqaabeedka ay leedahay dhibka ay Kenya u geysatay dadka iyo dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya way bixin doontaa way ka jawaabi doontaa taas waan ku fadhinaa midaan wayna qorsheedina way ku jirtaa dawladda haddii ciidamo la geeyado oo xuduudda ilaaliya Kenya ay duqeynayso gudihii magaalooyinka maxaa weeye ujeedada adiga oo militariga Soomaaliya kamida iyo mas'uuliyiinta gobolka Gado aad ka leedihiin waxa weeye دين بقى كلا قاعدنا هيا واحد سؤال وهذا كلا كتير أقول سؤال هذا كسوحان كهيا ولا دين من قاتو نيجي وكنت بتشوفي ودين وحي قاعدنا يساي دين تبصري هنا كما رأيه إسكدا دبك مالك يهنتل أي بربوني في الدستور ده لا ينسى دول كدلوا سوي الدين هيا يجيدها بقى هيا ميسان عقادات كأيلا ده كي ويدمين يسوينا قاعدنا ضده يوم الصومالي هذا حدود الله كاني ويأوجيهم أمر بيسوعيان أو أي كسوعيان حكومة الدولة وين كذا الدولة أيضا تلاقوا كل حب مركز أمر كواسية. ودن بين ضد هذا يجران داوعي جاري أو كنول ديجا نذا أشكت إن الدقيقة أو أهملات أفق مسافهان أو مجالوين كده وين محا عاومادو هلي كران أو دواء أو إسبتالله. ويعكرن تأمين داسي وحاول والله تنتهي waxaan ku noolay hadda degmada aan joogno waa degmo aan hadda isbitaal weyn ama isbitaal waxtar aan lahayn oo waxa weeye airport aan lahayn way adag tahay marka si loogu helo dadka xataa waxyeeladu ay gaadhay wax qabad si loogu helo way adag tahay waa dhul naga fog oo masaafo fog oo baar dheere waa Garbahaari waa Buulaha oo mid walba 200 iyo haye ay jirto in halkaas dadka lala aado weeyay midda tan hadda mid loo soo dhigayo maaha in dhulkaas hadda airport laga raadsaday mooyaane tan airportna ma lahan waxa hadda isbitaal oo ku yaalo oo hadda muhiimana ma jiro waxa weeyaan waa dhulkaas hadda waxa weeye deegaanada ku yaalo oo aysan soo gaarin ciidamada